kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa deegaan channel TV oo aad ka dhageysataan barta aanu ku leenahay YouTube-ka, Facebook-ga iyo website-dada aanu bahwadaagta xagga wararka ah leenahay. daawadayaal caawa qodobada warkeena aanu ugu doorka roon waxa kamida madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Somaliland oo sidii caadada u ahayd daba maray saxaafadda markuu ka soo degay magaalada Hargeysa maanta. waxaanu kaloo inoo haynaa maamul goboleedka Galmudug oo markii ugu horeysay yeeshay caasimad rasmi ah. qodobadaas iyo qodobo kale oo inoo hayna waxaynu ku bilaabi doonaa caasimada rasmiga ah oo maanta yeeshay maamul goboleedka Galmudug ee ku soo dhawaada daawadayaal. magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug xarunta u ah ayaa maanta si rasmi ah heshiis lagu dhaqan galiyay toddobaadkii hore ay ku soo kala saxiixdeen Ahlus Sunna wal Jamaa iyo maamul goboleedkii Galmudug wadanka Djibouti qaybtiisa labaadna ka dhacday Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho. halkana waxay ahayd gunaanadkii heshiiskaasi maanta waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka, xubno ka tirsan golaha wasiirada maamul goboleedada Soomaaliya intooda badan iyo waliba ergo ka socota qaramada midoobay oo hogaaminayo oo qaabilsanaha UN-ka Mr. Kaitin. waxaa kaloo iyaguna ka soo qayb galay madax dhaqameed aad u badan, waxaana lagu shirkaasi maanta halkaasi lagu go'aamiyay inay noqoto magaalada Dhuusamareeb xarunta rasmiga ah ee maamul goboleedka Galmudug. waxaana la sheegayaa in halkaasi laga taagay calanka Galmudug iyo calanka Soomaaliya, waliba markii ugu horeysay calanka Galmudug si toos ah looga taagay. waxaana cadhay ay gelisay arrintani maamul goboleedkii saddexaad ee markii hore heshiiska kula ahaa Ximan iyo Xeeb loo odhan jiray oo kamid ah asaasayaasha Galmudug. waxaana la sheegayaa in caasimadii ku meel gaadhkayd ee Ximan iyo Xeeb markii laga soo raray magaalada la yiraahdo Cadaado oo saaka mudaharaad ka dhacay aad u waaweyn oo laga soo horjeeda heshiiska halkaasi ka dhaqan galaya. waxna kama qaban dawladda ku meel gaadhka ee arrimahaasi, qorshahana kuma ay darsan markii hore inuu khilaaf kale halka ka soo cusboonaado. waxaase la hubo oo kaliya ayaa ah inay dhammaantood ka baxeen odayaashii iyo madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiintii ka soo jeeday deegaankaasi shirka maanta ka dhacayay magaaladaasi. waxaana la sugaaba waxa weeye khilaaf hor leh iyo cakirnaan ay tahay xalinteeda in la raadin doono. intii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda wadanka Somaliland kadib markii uu muddo ku maqnaa safar uu ku tagay wadanka Itoobiya. waxaana madaxweynaha sidii caadada u noqotay baryihii dambe oo dhanba uu ka gabaday saxaafadda, waxaanu ogolaaday oo kaliya in sawir laga qaato. hase yeeshee afhayeen u hadlay wafdiga meesha maraysay wasiirkii warfaafinta oo lagu magacaabo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa sheegay inuu safarka ay ku tageen wadankaasi ahaa safar taariikhi ah guul ku soo dhamaaday. waxaanu sheegay inay ka wada hadleen dawladda wadanka Itoobiya arrimo xagga nabadgelyada ah iyo arrimaha horumarinta labada dal ee xagga dhaqaalaha. waxaana uu wasiirku taabtay oo aad ugu dheeraaday xagga waxbarashada inay si fiican isaga soo afgarteen. waxaanu wasiirku sheegay in Itoobiya sanad walba Somaliland siiso deeq waxbarasho oo aad u badan, hase yeeshee buu yidhi aan sidii loogu talagalay looga faa'iideysan jirin. iminkana wuxuu sheegay in looga faa'iideysan doono sidii loogu talagalay oo dawladdu qof kasta oo ay dirayso ay u go'aamin doonto waxa uu ka soo dhiganayo wadanka uu tegayo. waxaana dadku isweydiinayaan sababta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu uga gabanaya saxaafadda isagoo lagu ogaa aftahan aan hadalku ka lumin